mid kale ka dhex baxsaday marka farsamo oo aniga gooni ah oo burjikayaashan hadda u jeedin burjikayaashan noocan hadda u jeedin hadda fartamiino waa taban kuwan maskaxdayda ka helay kuwan alxamdulillah waanu ku qanacsanahay meelana laga soo wacnin male balad iyo baadiyo xamar iska wadaaf horay waxa uu shaqay jiray alxamiistan ahay adiga ugu yaraan 20 sano waa ka shaqeeyay laakiin dad le u shaqeey jiray markaas dada u shaqeey jiray qoyskii waa adiga waa laba qoys waaye mid waa 8 midna waa 9 alxamdulillah waa farsamadan aan ku noolna rijiga ayadoo wiil qoyan abaasha leegsi dafawaale burjikooyinkan aad arkayso ma ahan kuwa dalka dibadiisa laga soo dhoofiyay mana ahan kuwa waqti yar kadib baaba'aya balse waa kuwa dalka gudihiisa lagu farsameeyay tayadooduna ay aad u sareyso ma sahlana inaad samayso qalab sanacadiisu u baahan tahay inaad haysato agab ama warshad hase ahaatee Aaba Suleymaan Jibriil ayaa isku hoolay oo gacantiisa ku farsameeyay burjikadan oo dalka dibadiisa lacago qaali ah looga keeno sameynta burjikadan oo hal abuurkiisa oo iska lahaa Aaba Suleymaan ayaa wuxuu ku shaqeynayaa farsamadan burjikada muddo 2 asbuuc ah sidoo kale wuxuu dib u sameeyaa burjiko Kenyaatiga markay halawdo Aaba Suleymaan 20 sano kahor waxa uu ahaa alxamiiste sheegayna waqtiga inuu ahaa shaqaale sidoo kale konteenarada inuu ka sameyn jiray albaabo iyo dariishadaha guryaha balse hadda ku faraxsan hal abuurka cajiibka ah oo la yimid misne uu ku shaqaysto bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Suleymaan Jibriil Maxamed waxaan joogaa degmada Yaqshid gaar ahaan xaafadda Tawfiiq farmashiyaha kuulo agaarkiisa laga helaa aad iyo aad ugu faraxsanahay TV-ga RTV aad ugu faraxsanahay inay maanta ay ila kulmaan farsamadan iyo shaqadan adiga waxay ugu dhalatay shaqayaashan oo burjikadan oo waxa laga keenay banaanka laga keenay adiga muddo waxa ka shaqeeyno waa hal sano ka shaqeeyno waa mid kale ka dhex baxsaday marka farsamo oo aniga gooni ah oo burjikayaashan hadda u jeedin burjikayaashan noocan hadda u jeedin hadda fartamiino waa taban kuwan maskaxdayda ka helay kuwan alxamdulillah waanu ku qanacsanahay burjikayaashan ayaa ka koobiyay kuwa Kenyaatiga ka koobiyay koobi waaye koobiga adiga ilaa 2 sano ka shaqeeyno waa 2 sitimaana ka shaqeeyno waa si fiican ayuu kula socotaa shaqada meelana laga soo wacnin male balad iyo baadiyo xamar iska wadaaf rijiga ayadoo wiil qoyan abaasha leegsi dafawaale anoo dhameyn shaqada si fiican u dhameyn burjikada Kenyaatiga markay halaawdo waxa ka sameeyaa dhaxda ka sameeyaa ayadana dhaxday ka soo burburtaa dhaxdaas marka waxa ka sameeyaa lamiir adaga galshaa qofka ayadoo qanacsan ay qaadataa horay waxa uu shaqay jiray alxamiistan ahay adiga ugu yaraan 20 sano waa ka shaqeeyay laakiin dad le u shaqeey jiray markaas dada u shaqeey jiray 20 sano adiga elboorka iyo waxa ka shaqeey jiray iyo barnaamijka laga soo wac jiray laakiin muqdisho gudaheeda ka shaqeey jiray laakiin waa shaqadaas oo nacabo ina aniga iskay u shaqeysto shaqada waxay ahayd konteenaryaashan la kala gooy jiray albaaba loo sameey jiray daaqada loo sameey jiray shaqada intaas ka koobneed muddo la yiraahdo adiga 5 sano amana waxa ka shaqeey jiray darawal cagafaan ahay oo beeraley ah beertaas tacbi jiray cagafta waa wadaad oo ilaahu naxariisto hadda ka hor dhintay iska lahay markoo dhintay aniga ay ugu dameysabo darawal cagafaan ahay beeraleyna waa ahay cagafaa ku fala jiray darawal aan ahay cagafaa ku fala jiray beeraha muddo adiga 5 sano ka soo shaqeeyay 5 sano wadaadka markoo dhintayna waa iska dhaafabo shaqada cagafta xamar uga soo galay xamar markaa soo galay 20 sano igar ila dhashay ka shaqeey jiray alxanka waa imaajiraysa u fiirsan jiray waa iska jeclaa alxanka iska jeclaadaba markaas alxanka gudaha ugu galabo adiga muddo 20 sano ka shaqeeyay
wax aniga oo shakhsiyan igu soo dhacdo waa maahina aabahay aniga Jawhar Isnaay oo fundi ka ahaa jiray waa nin la yaqaano Jibriil Maxamed Tugi wala dhihi jiray waa aan Isnaay warshada sokorta ka shaqeey jiray nin la yaqaan waa Ilaahu naxariistay waa intaad si fiican laga iibsadaa waliba ay ku faraxsan ayga iibsadaan midda u sameeyna ay ku qanacsan ayga qaataan wax oo ma arkin oo wili dhahayo aniga burjikada igu sameeysay waa si xuma igaga sameeysay iyo hal bilaa haysta iyo wili ma ana arkin shaqadiida waxa shaqo nadiif midda qataatuga waa ka soo horjeeda aniga farqi weyn u dhaxeeyo midda oo Kenyaatiga waxa waaye gudaheeda waa yar tahay macnaha galaaskeeda waa yar yahay gudaha birta canjeerada geesaha ciirinay ka naqahay laakiin midaan waa faafiyay waa weyneeyay birta canjeerada ugu talagalay wallaahi billaahi gobol iyo baadiyana waa mahadsantahay la dhahay saasa ka rabnaa shaqadana si wada lagu hayaa bismillaahir rahmaanir rahiim si fiican lagu dhiirigeliyaa boqolkiiba boqol waa lagu dhiirigeliyaa Aabba Suleymaan Jibriil ayaa ii sheegay wax caqabad ah inuusan kala kulmin bulshada iyo dadka ku xiran ay ka iibsada burjikooyinka balse ay jirto caqabad yar oo marmarka qaar kala kulmo jaarkiisa maadaama afaafka hore ee guriga uu degan yahay iskaga shaqeysto maalinkii Aabba Suleymaan ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda iyo ganacsatadaba inay ka caawiyaan in loo dhiso meel u gaar ah oo u fududeysa sameynta burjikooyinka wallaahi been ma taas waa diriska waa aad iyo aad oo idibsadaa been ma ahan taas aad iyo aad oo idibsadaa waxaan garaacayo waxa iska jiraan dad waayeele dad oo maskaxdooda xamili karin laakiin waxay dhahaan un Suleymaano ilmo kurisa tahay waxa ku dhahan ma naqaan kirana ka bixi ma karnee iska shaqeysay ugu dhahan wallaahi waa igu dulqaataan ma wili ma arkin bulshada waaba iska qanciyaaba aniga marka farso wax u qabahayo aniga midda ani qaadan lahaa farsamada ani qaadan lahaa bulshada jeclaha inaa u sameeyo wax caqabad oo bulshada ku arkay ma jirto haddana Ilaahay iga koriyo waxa ka rajayaa bulshada Soomaaliyeed inay ugu xirmaan oo ila socdaan ay ila shaqeeyaan ka codsaha dawladda waxa ka codsaha dadka waxa ku shaqo leh alaabta la sameeyahay ku shaqo leh waxa ka codsaha qalab ku shaqeeyo inay isiyaan dawladda ka codsaha wallaahi aad iyo aad u jeclaan lahay meesha waa guri waaye ilma joogo moola la waxayha baashaan oo kale waa la shiraa waa lagu shaqeeyaa wax baa faniinaayo indhahaas ay halis u tahay marka indhahaas ay halis u tahay ilmaha inay ku dhacaan marka waxaan ka codsan lahaa dawladda meel oo gooni oo ilmaha xoogaa oo ka fog inay ii sameeyaan aad iyo aad uga codsan lahaa dawladda guriga aniga malihi gurigan kiraa ku deganahay laba qol ka deganahay labada qol lacagtooda baxsada banaankaana waa iskaga shaqeystaa qoyskayga waa adiga waa laba qoys waaye mid waa 8 midna waa 9 alxamdulillah waa farsamadan aan ku noolna ugu dambeyn dad kale hibada farsamada gacanta caalamka waa la maalgeliyaa sidoo kale waxaa la siiyaa tixgelin iyo maamuus gooni ah balse Soomaaliya iska daa tixgelin waaba la takooraa oo laguma dhiirigeliyo hal abuurka cajiibka ah ee leeyihiin bulshada Soomaaliyeed Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka Hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida